Nairobi ninka la sheegay inuu carruurta dhiigga ka dhuuqo ka hor inta uusan dilin oo lagu xiray Kenya. Booliska dalka Kenya ayaa xabsiga u taxaabay 20 sano jir lagu tuhunsan yahay inuu dilay ugu yaraan 10 carruur ah. Ninkan oo qirtay inuu falal iskugu jira kufsi iyo dil uu kula kacay ugu yaraan 10 carruur ah ayaa magaciisa lagu sheegay Martin Milimu Wanjala. Wuxuu saraakiisha booliska u sheegay in meelo kala duwan uu geeyay meydadka dhibanayaashii uu dilay. Waaxda dambi baarista ayaa barta Twitter-ka ku soo daabacday warbixin ku saabsan sheekada ninkan iyo sida uu u fulinayay dilalka lagu tilmaamay naxariis darrada ee carruurta. Qoraalka booliska ayaa lagu yiri dad cunka wuxuu waday dil joogto ah oo uu ku bartilmaameedsanayay carruurta ay da'doodu u dhaxayso 12 sano ilaa 13 sano. Wuxuu mas'uul ka ahaa afduubyada magaalada Ruxay dhawaanahan. Waxay booliska sheegeen in uu khiyaani jiray carruurta inta uu la ciyaaro. Booliska dambi baarista ah ee Kenya ayaa sheegay in habka uu dilalka u samayn jiray ninkan ay tahay mid naxdin leh. Wuxuu qirtay inuu ceejin jiray carruurta isaga oo isticmaalaya suun kiimiko ah ka hor inta uusan dilin, sida ciidanka laga soo xigtay. Ninkan ayaa sidoo kale sheegay in dhiigga uu ka dhuuqi jiray carruurta. Ninkan xun ee sida qarsoon dilaaga u ahaa wuxuu 2 wiil ka afduubtay Katingeli iyo Malungo. Wuxuu u dhigay shirqool dil wuuna ceejiyay, kadibna wuxuu meydkooda ku tuuray bulaacad. Weli meydkooda lama helin, ayay qoreen booliska baaraya dembiga ninkan ku eedeysan yahay. Meydadka 2 ka mid ah dhibanayaashii uu dilay ayaa laga helay deegaanka Kabete oo ku taalo agagaarka magaalada Nairobi. Waxaa sidoo kale isla deegaankaas shalay laga soo helay meyd kale oo la sheegay in uu ka mid ahaa carruurtii uu dilay ninkan la tuhunsan yahay. Meydadka oo dhan way wada dhan yihiin, qaybna kama maqna, balse meydadka waa ay qurmeen, ayuu yiri taliyaha booliska magaalada Nairobi. Waalidiinta wiilasha meydadkooda la helay waxaa booliska u sheegeen in la waayay saacado kadib markii ay iskuulka ka soo laabteen. Mid ka mid ah waalidiinta wiilasha meydkooda la helay oo lagu magacaabo Tonyo Obindo ayaa sheegay in wiilkiisa uu fasalka 6aad ee iskuulka hoose ee Sakaret dhiganayay uuna ku cayaarayay bannaanka gurigooda markii la waayay abbaare 7:15 fiidnimo. Booliska ayaa sheegay in ninkan uu faralka la xiriira dilalka in uu bilaabay asagoo 16 sano jir ah. Xilligaas wuxuu dilalka ku bilaabay gabar 12 sano jir ahayd oo ka soo dhuntay magaalada Machakos oo 54 kiiloomitir u jirta Nairobi, caasimadda Kenya. Booliska ayaa sidoo kale sheegay in ay weli wadaan su'aalaha ay weydiinayaan ninkan si loo helo meelaha uu ku aasay meydadka carruurtii uu dilay. Baarayaasha kiiskan ayaa sheegay in ninkan uu u sheegay in carruurtu uu raaci jiray xarumaha ilmaha lagu cayaarsiiyo. Martin Milimu Wanjala ayaa laga soo qabtay wadada Katingeli ee caasimadda Nairobi kadib markii baaritaan la sameeyay lagu sheegay in isla wadadaas lagu waayay 2 carruur ah. Kiisaska afduubka la xiriiro carruurta ayaa ku badanaya magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Booliska ayaa ku guuleystay in ay soo badbaadiyaan carruur badan, balse kuwa badan oo ka mid ah waxaa la helay meydadkooda. Booliska ayaa dhowaan sameeyay ciidamo gaar ah
oo loo xil saaray ka hortagga kiisaska afduubyada ee ku soo badanaya Kenya xilli ay waaxda dambi baarista sheegtay in arrintan ay khalkhal gelinayso amniga guud ee dalka. Dilaagan oo aan ka qoomameyneyn ficiladiisa wuxuu dambi baarayaasha u sheegay in uu aad ugu farxi jiray dilalka carruurta. Aqayaarteena aad jecelnahay waxaa kaloo idinka raali gelinayaa barnaamijkii ka horeeyay ama video ka horeeyay oo aan ku sheegay inuu xukunka la wareegay Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed 2008 waxaan ula jeeday hilmaan hadal kuma jire 2018 inuu la wareegay halka shahaadada nabadda la guddoonsiiyay Mr. Abiy Ahmed 2019 intaasna waa idinka raali gelinayaa ciddii dhageysatay tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka xiga sidaas iyo nabadgelyo.